للسترت أسحبت ذا لولا اللاقل للسترت أسحبت ذا لولا السلام اللاقل. عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta ku xiran janalkeena wehelyaha ummadda waan idin salaamay. salaan kadib haddii aad naga cusubtaa soo dhawow subscribe-ka taawo gambaleelkana rukumo si aad nala socoto wax walba aynu soo dhigno durbadiiba. haddii aad horey nala joogtayna like saar oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanid. intaasi kadib maanta ay tahay maalin jimcaha taariikhdan ay ku asteysan tahay 12 Juun sanada 2020 waxaynu ku balansaneen inaynu hawada soo gelino natiijada tartankaas oo la magac baxay tijaabi codkaaga kuna hel awaalmarin. waxaana ka qayb qaatay walaalo gaarayo ilaa 15 ruux. dhammaantoodaba waxaynu leenahay waad ku mahadsantihiin dadaalka iyo juhdiga aad ku bixiseen. insha Allah hadeerna waxaynu soo gudbin doonaa qofka guuleystay. haddaba waa kuma guuleystaha. ha dhararin oo muuqaalka dhammayso ilaa aad ka aragto ama aad ka gaarto guuleystaha. insha Allah natiijada waxaynu usoo gudbin doonaa hadba si ay u kala sareyso. waxaynu ka bilaabi doonaa midka ugu hooseeyo ilaa aynu ka gaarno midka ugu dambeeyo. insha Allah imankana daawasho wacan. waa tahay intay codeynta socotay waxaa codkiisa batay walaalka lagu magacaabo Cabdirasaaq Suleymaan Cusmaan kaasoo fagaaraha kaga soo baxay tiro la eg 237 cod kaasoo ku guuleystay
ama kaa soo galay kaalinta koowaad. waxaynu leenahay cabdirasaaq horay u soco. insha allah waxaynu rajaynaynaa inaynu kula soo xiriirno sida ugu dhaqsiyaha badan. walaalaha kaleentana ayagana way dadaaleen, ayana meesha dadaalka kasii wada ayaynu leenahay. insha allah guul wacan dhammaantiinaba. لسترت أسحبت ذا لولا اللقل لسترت أسحبت ذا